xilligu wuxuu ahaa habeen, saacaddu waxay ahayd 5 saac. Anigu waxaan ku soo daahay suuqa iyo howlo kale. 5 saac iyo bar ayaan xaafadayda soo garaacay. Isla markiibana waxaa iga furtay xaaskayga. Waxaan weydiiyey sababta xilligan soo jeedisay ee ay u seexan weyday. Iimaysan jawaabin balse way iga dhaqaaqday. Aniguna waan ka daba dhaqaaqay. Kolkaas ayay tiri, wax ma soo cuntay? Waxaan idhi maya. Haddana waxay igu tiri, cuntadii waan kuu diyaariyey ee orod soo cun. Waxaan idhi, ma xumee xilligan maxaa ku soo jeediyey maad iska seexatid? Kolkaas ayay haddana igu tiri, waxaynu isu guursanay oo aan nolosha ugu midownay inaynu hal noqonno. Xilligan waxaa i soo jeediyey werwer, adiga la'aantaa waan seexan waayey. Indhahayguna waxay caado ka dhigteen inay araggaaga ku seexdaan, balse caawa araggaaga way tabeen, hurdana way diideen. Haddaad awooddo fiidkii imow si ay indhahayga araggaaga ugu seexdaan. Kolkaas ayaan xaqiiqsaday inuu jiro ruux iga fikira, iga naxa, noloshayduna ay qaali ku tahay. Kolkaas ayaan go'aansaday inaan adeeco amarka gacalisadayda. Waxaan ogaaday inaan haysto janno adduun. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من